بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان ولا لها صومال ميل كسا joogtaan soo dhawaada Allah idin barakeeyo meel walba ku sugan tihiin iyo si walba ahaateen oo walaalkeen maamulaha Cabdullaahi al-Shifa Cabdullaahi Kay waxaan idin wadaa arrin aad iyo aad muhiim u ah qof walbana ku noqon doonto farxad qof walbana uu dareemi doono Ilaahay idankiis rayn iyo caafimaad waxaan caawa ugu tala galay walaalahayga inaan ogeysiis aad u muhiima aad u mugweyn aad u farxad badan aad u qaaliya meel kasta aad joogtaan iyo si walba ku sugnaateen Allah subhanahu wa ta'ala haydin barakeeyo haydin cizeeyo waxaan wada laba ogeysiis oo aad u muhiima midka koobaad iyo midka labaad mid walba farxadiisa ayuu leeyahay waxaan rabaa meel kasta aad joogto ama Europe joog ama Mareykan joog ama Kenya joog ama dalkii Soomaaliya joog ee barakeysnaaye شرط كقبو ولا لها كلا جارسي يلا جه هرمرن خيرك يوناجا لقيبس ولا لها كلا آدي آد بندي سلام يا دمانتين إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركة هيدن عزيز دمان هلا سود وهذا ولا لها خيرك بدن هلا سي شرقر برامجك ولا لها كلا هلا جارسيو هلا سلسي وذاك خيرك هلا سي فافيو وناجا يا خيرك جرو والبهجرة قفل بقى ولا الأودنينا يا أرنتن يوناجا يا خيركن fadhigiisa ugu tagto dad fara badan oo qalbiga ka ilmeenayo ka murugsan ha farxaan oo adiga u geey farxada aad iyo aad baa u mahadsantiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin barakeeyo haydin xiftiyo muxuu yahay barnaamijkan idin wado insha Allah ta'ala wala barnaamij oo aad iyo aad u farxad badan alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan soo dhawaada alla si shargaray alla si gudbiyo aad baad u mahadsantiin Allah haydin xiftiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof walba oo sheerta si gudbiya ربي ألا بدأ جنة هوفره خير كان الله وافجيه آدي آد بوم هالسنتين إله سبحانه وتعالى هيدن بركيه هيدن حفتيه لولا سودة ولا شيء الله بركيه نجح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آد بوم هالسنتين قبل هنا خير كبدنا ما شاء الله ورماش خيار بكم موقتا ده خير بدن بكم موقتا ده دون أكسب بكم موقتا إله سبحانه وتعالى هيدن شرفه هيدن كراميه أو هيدن ما رحت كر الله هيدن قاضي آدي آد بن إدين سلام يا waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaan ogeysiyo walaalahayga ogeysiisi aad u muhiima aad u qaaliya aad u qiimo badan aad u farxad badan aan rajeynayo qof walba oo walaal inuu ka faa'iideysto Ilaahay idankii isaga oo jooga gurigiisa ogeysiiso koobaad waxaan rabaa inaan ku hormaro walaalahayga Soomaaliyeed waxaa jira dad fara badan oo aad iyo aad u xanuunsan xanuunada la kala gedisan ka cabanayo xanuunada ay ka cabanayaana waxa u badan gas xanuunka u badan ee dhibta badan muxuu yahay waa xanuunka gaaska oo dadku waxa la cuni laayihiin la jiibsan laayihiin la ladi laayihiin wax la liqi laayihiin gaas iyo ay xanuun aad dareemayso maxaad adiga ka cabanaysaa muxuu yahay xanuunka adiga aad ka cabanayso adiga aad dareem waxaad ka cabanayso ma gaas baa jira ma sokor baa jirta ma dhiikar baa jira ma il baa ku haysa ma sixir baa ku haya ma jin baa ku haya muxuu yahay waxa adiga aad ka cabanayso adiga ayaa dareemay Allah ayaa og thumma adiga ayaa og wax walba aad dareemayso waxaan waliba aad iyo aad rabaa inaan u farxad geliyo walaalaha mar walba murugta dareema murugta mar walba ay u daaran tahay mar walba ay u shidan tahay mar walba hilkooda ay tahay waad dhimanaysaa ma noolaanaysid ilmahaaga armay la dilaa armay dhintaan mar walba qalbigooda murugta uu ka buuxo bishaarayso Ilaahay idinka insha Allah ta'ala bishaarayso oo ku bishaarayso arrin aad iyo aad u farxad badan aad ku farxi doonto oo aad ku liibaani doonto Ilaahay idinkiis insha Allah ta'ala waxaan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idin wadaago arrin yar oo marka la fiiriyo arrin dhan marka laga fiiriyo aad bay u yar tahay laakiin dharka marka laga fiiriyo aad bay u weyn tahay sidaad ogsoon tihiin dadkeena Soomaaliyeed waxay ka cabanayaan xanuuno kala gedisan qaar baa ruuxi ka cabanaya oo jibankii ay dhibayaan qaar baa ka cabanaya xanuunada dabiiciga ah oo iska caadiga ah oo qofka ku dhaca sida dhiikarka sonkorta gaaska iyo maxay ahayd kor xanuun iyo rheumatism xanuun walba adiga aad ka cabanayso mar rabtaa inaad ka caafimaado mar rabtaa xanuunka ku haya inuu kaga caafimaado Ilaahay idankii 7 bari 9 maaho 10 maaho 12 maaho 9 bari inaad kaga caafimaado mar rabtaa haduu yahay gas ku dhibay ku holcinaya korkaagana aad iyo aad u horiyay mar rabtaa inaad ka caafimaado muddo 7 bari sheergari Allah ku barakeeyo 7 bari inaad kaga caafimaado mar rabtaa qodobka labaad mar rabtaa ay xanuun haduu yahay sixir ama guriga lagu dhigay ama lagu cabsiyay ama wax maaragtay lagu soo dhiibay ama bariyahan dambe waxa badan ninkayga naakal uu ka yimiyo dharboodo dharkii markaan furayba aniga dhanba waa miyir dawalmay waa suuxay waa dhacay intee ka dhacday mar rabtaa waxa soo dhan inaad ka bugsato ma joogtaa dalal shisheeye
oo ma gaari la adahay qur-aanka in lagu saaro ma garan la adahay meelaad aado oo qur-aan lagaa saaro ma garan la adahay meelaad ku jihaysato ma garan la adahay cidaad la xidhiidho ma garan la adahay cidaad ku ciirsato ma garan la adahay waxaad qabato hadday jawaabtaadu haa tahay iga filo ilaahay idinkii arrin aad iyo aad u farxad badan oo aad ku farxi doontaan dhammaantiin ilaahay subxaana wa tacaala ha idin barakeeyo ma tahay qof mar walba la ildaran oo la circiiraya xanuun daashaday jilbaha iyo jismiga iyo lafaha iyo dhuuxa iyo dhiigga intaba miiro baralaati ka dhigay ma tahay qof mar walbo la dhiban oo la murugsan xanuunka haysta dhakhaatiirtuna ay kari la-yihiin midba midka kale uu leeyahay wax ku haya lama garanayo kaniinadu ma ku daashadeen oo 2 iyo 5 iyo 6 ma u liqdaa ila soco oo iraac waxaan rabaa walaalahayga inaan ugu bishaareeyo insha allahu tacaala waxaa halkan aan ku hayo waa biyo waxaad samaynaysaa ma tahay diyaar ma u tahay inaad qaadato barnaamijka waxaan ka dhigi doonaa musalsal dal walbo aan tago iyo meel walbo aan tagana ma joojin doono waxaan samayn doonaa arday khaasa whatsappkana arday baan u samaynayaa ilaahay idankiisa weliba waxaan si khaasa whatsappka aan lambaragu aan ugu samayn doonaa group ayaan samayn doonaa waan kala saari doonaa dadka insha allahu tacaala hooyooyinka ilmuhu ay kasoo dilmayaan kuwii al-shifa ka qaatay daawooyinka ee ku daawoobay iyo kuwa weli aan ka qaadanin ee la wareersan cunugii 2 baa kaa soo dhacay kii 3 baa kaa soo dhacay kii 4 baa kaa soo dhacay marka qaar bi hooyooyin waxay ku dhaayeen 5 baa iga soo dhacay 6 baa iga soo dhacay kana soo ilaahay idankii hooyooyin fara badan ba waxay ku leeyihiin guriga waan iska joogo waan iska feedho weynahay waan kaftamaya waan iska feedho weynahay ma ahaane oday damba kama galo luuq baan ka galaa markuu soo galo waaba leega shidaay gebiga sababa ii soo uraa oo ku carfi doonaa insha Allah si fiican hidhigiisa ilaahay idankiisa ma tahay qof hadaba dhaguhu mugiisu buuxo dhagihiisuna wax maqlayaan soona jeedo hadday jawaabtaadu haa tahay qalbigaaguna furan yahay ii dhagayso waagu markuu bariyo hadda ka bilow waagu markuu bariyo waxaad samaysaa ilaahay idankii hal litir biyo soo qaad arday khaasa qoraya xaqiiqatan 2 beri ayaan waxaan u diray dad waxay ii keeneen jawaabo aan la yaabay oo aniga xitaa iga fajiciyay waxaad samaysaa biidni illaahi tacaala litir biyo soo qaad goorma waagu markuu kuu bariyo salaad subaxa markaad tukato waan ogsoonahay oo caajis baa ku saaran waan ogsoonahay hurdadii kumaad nasan waan ogsoonahay oo farxad ma dareemaysid waan ogsoonahay lafaha ku jajabana ku burbursan waan ogsoonahay waxay xalay oo dhan qof alaab dejinayo kala tahay waan ogsoonahay oo ma tihid qof hurdadiisii halkii la inuu nashaad iyo nasiina ku soo kaco kumaad soo kicona waan kaa warhayaa waan ku ogsoonahay litir biyaa soo qaad ilaahay baan kugu dhaarshay iga daa cajiska cajis iga ilaali warkiisa iga jooji iga dheere yaanan maqlin dhagahaaga fur indhahaagana si fiican insha allahu tacaala fag uga sii litir biyaa soo qaad waa xaqiiq anaa waxaan hubaa 100% 200% inaad ku caafimaadayso wallahi thumma wallah waa ku dhaaranaya weliba waagu markuu bariyo soo qaad litir biyaa waa inuusan litir ka yaraanin hadda i dhagaysta dhagihiinana fura sheergaree barnaamijka allah ku sharfo litir biyaa soo qaad ma tahay bal fiiriya qof baa wuxuu ku leeyahay walaal baa ku imaan wuxuu ku leeyahay niyahow baabasiir baa i dhibay kow walaal baa wuxuu ku leeyahay niyow gaas baa i dilay walaal baa wuxuu ku leeyahay niyow rheumatism baa i dilay walaal baa wuxuu ku leeyahay biyo ma cabo caloosha ay dibirsan waxaan cuno halkaa ma dhaafo wala gabarba waxay ku leeyahay caadada igu xidhan caadada i dhibta ilmaha iga soo dilma maxay ahayday cholesterol baan leeyahay xanuuna wahlo madalik iyo ka badan litir biyo soo qawaagu markuu bariyo galab caawa bilow biris waxa bilow litirka soo qaad kadib maxaa ku aqrinaysaa afkaad saaraysaa ilaahay kalaamkiisu muusan daawo ahay kalaamka ilaahay daawo ma yamsamaho litirkaas biyaha waxaad ku aqrinaysaa aayadaha soo socda kow faatixo 7 aayadood faatixo 7 jeer baan ka wada cafan faatixa 7 jeer ayaad ku aqrinaysaa mar walba suurada aad dhameysana waa tufaysaa ilaahay idankiis haddaad gaas ka cabanayso waxaan kuu hubaa muddo hal isbuuc gudihiisa inaad kaga raysanayso
oo caafimaadaysid oo gaas iyo adiga aad isdayn doontaan olol iyo adiga isdayn doontaan daal iyo burbur aad isdayn doontaan ala cuntada kugu soo guddoonto aad isdayn doontaan daal aadan ka bixin iyo caajis aadan ka bixin aad isdayn doontaan xanaaqa ku dilooday ku daashaday banaanka uu kaa mari doono anaa kuu huba taas waa xaqiiq anaa kuu huba taase ma tahay walaalkayow rabbi ha ku sharfe ma isku dhaarsananaa inaad tahay qof wax maqlaaya oo waqtigan aan bixinaayo mid ka faa'iidaysanaya adna ka faa'iidaysanaya ma tahay 7 jeer baad faatixa ku akhrinaysaa litir biya yuusan ka yaraanin inuu ka bata maahaane 7 jeer faatixa ku akhri mar walba dhamaysana bayaad leedahay waad ku dhamaynaysaa qodobka labaad waxaad akhrinaysaa آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم تدوجر يا دخرنسا واتكسو تجيسا قل هو الله صدح جر قل أعوذ برب الفلق نا صدح جر قل أعوذ برب الناس نا صدح جر هل آيات أو كمذا إدجيسو بحان كل هاي فاتحة تضبط آية كرسي تضبط معوذتين صدح آياتا ربي هاكو شرف هاكو كرامية 40 جار أخرين بس وحكى لها أخرين ومن شر حاسد إذا حسد 40 جار أخرين مروا البعض أخرين بيها كتف والأكسونة هيدد فربضان با وحي كعبانا يان قولوا جيجا مجالي كرو هدان قالنا وانا حبسانا يا أما نقص كان اللي يقول الجينا يا قولك سررت مجالي كرو وان دبسانا يا المهيجي هامين والبوحان أمرنا إنا بهلايقا قادنا يان عريري من وران كرو gurigeyga waxaan rabaa inaan banaanka uga baxo banaanka ayaan ku soo nafisaa dhabarka kama kici karo lugaha kama kici karo wadnaha mar walba leejiida maaragtay caloosha mar walba idibaraysa beerka ay xanuunin xanuun noocaas la igu sheegay kana soo kan ka jiifsa ilaahay idinkiisa maxaad akhrinaysaa ومن شر حاسد إذا حسد 40 jeer ayaad akhrin doontaa 40 jeer ومن شر حاسد إذا حسد ayaad akhrin doontaa mar walba oo aad mar walbaad ku tuftana mar walba aayada aad dhameysana ilaahay idinkii waad ku tufaysaa hooyo macaan haday ka xanuunsan tahay xaajigu haduu ka xanuunsan yahay gacalisadaada haday ka xanuunsan tahay adiga hadaad xanuunsan tahay ehelkaaga qofka mid ah haduu xanuunsan yahay ma aaminsan tahay kalaamka ilaahay inuu daawo yahay kalaamka ilaahay inuu daawo yahay la isku daaweeyo ma aaminsan tahay haday jawaabtaadu haa tahay kan naso waxaan kuugu bishaareynayaa muddo 7 bari ah inaad ku caafimaadayso gabarba waxay ugu tiri Allah barakeeyo Mareykan joogto waabaan waxa uu tilmaa dhowr aayadood aayadahaas isa saar isku akhri kadib way waday waxay soo wacday muddo adiga hal isbuuc gudihiisa waxay ugu dhahday waxaan dareemi jiray daal aad u fara badan oo ma socon jirin oo walbahaar baan dareemi jiray oo riixin riixaye ayaa idhibi jirtay oo oodin ayaa marba leegu taagi jiray oo caloosha waxay iga gurguurayeen wixii oo dhan malihiya maxaan sameeyaa waxaan dhahay sii wad ha joojinin aad u sii dheeree yaa ilaahay ha ku xuftiyo ilaahayna ha ku maarta ka kor qaado gabadha qoranta wafawdu amri ila Allah wafawdu amri ila khaliqi ilaahay ha ku xuftiyo sidaa darteed intaas ayaan kuugu bishaareynayaa inaad kaga nasan doonto waxaan leeyahay hooyooyinka la ildaran sixirka la cabsiiyey ama loo daadiyey ama jibinka loogu soo dhiibay ama maryaheeda loogu soo sayriyay ama maxay ahaydee jil loo soo adeegsaday ayinkaan ha ahaado kaga rayso oo kaga bishaarayso oo kaga caafimaad 7 bari xanuunka aad ka sheeganayso inta markaad samayso waxaad samaysaa biyahaas markaad cabto si fiican idhigayso biyahaas litirka hal mar ayaad ka saaraysaa hal mar ayaad ka saaraysaa waad nasanaysaa oo biyaha u naso laakiin ma dhacayso inaad intaad cabto kacdo hadhow soo laabato la walaal baan siiyey waxaan ku dhahay biyahan cab hargeysaan joogo waxaan ku dhahay biyahan cab insha Allah taala waa tahliil ilaahay idankii tahliisha cab ma aaminsan tahay xab isjiidanayo oo aad u malayso cajiin la qasay oo xagna il ah xagna dhar dibacana xabag ah inuu saago soo foqay hal mar baa gabadha aan arkaayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala caafimaad taama iyo nashaad u meeshii ku sii walaal kale iyo sidii kuwa kale sidii hal mar baa fayl loo soo galay sheekhow waxaan rabnaa tahliishin inaad aayadihii aad noo sheegtay aan isku tufnay kalaamka ilaahay isaga daawo ah adiga qaadan la saa darteed qofba wuxuu kale guurka igu adkaaday aayadaha bisamee
ku akhriso subax walba markuu waagu uu baryo inaan kala qaadanayno aad iga qaadanaysaan ayaan rajeynaya ilaah idankii waaga markuu baryo intaas isku akhri litir biyaa soo qaad ku akhri cab xataa waxaa damaanad ah oo aan kuu sheegayaa inaad hurdo ku laabanaynin hadday hurda kaa tagteen intaad ku laabato inaad si raaxale u seexanaysid waxaan ku xijin doonaa dadka dhabarku xanuunayo dadka wadnuhu xanuunayo dadka madaxu xanuunayaan dadka caloosha ka liito dadka murqaha ka kicila maxay ahayday iyo ragga hamigooda oo aadka u yaraaday hooyooyinku ilmuhu kasoo dilmaya dadka waxbarashada ka cararay dadka guurka ku adkaaday duruus musalsala ayaan wadi doonaa intaada dalka Nairobi aan ku suganahay insha Allah taala haddii dal kale aan tagana oo ka baxsan Kenyana ilaahay idanki sida ayaan u wadi doonaa laakiin Allah idinku anfaco ilaahay baan kugu dhaarshay sii gudbi barnaamijkan dad fara badan baa dhiban oo xanuunsan xaqiiqatan dad baa guryahooda kulladila oo ku seexan la ma malayn kartid bal fiiri aabaha intuu iimi igu yiri xaaskayga inaan hor fadhiisto u sheekayo la sheekaysto weheliyo waxaa iiga farxad badan banaanka inaan soo joogo xaaskayga inaan la sheekaysto waxaa iiga farxad badan banaanka inaan kusoo qoslo xaaskayga inaan iyo ilmahayga inaan wehel ka dhigto oo markaan banaanka kusoo daalo guriga aan imaado ilmahayga aan ku nasto oo ku raaxaysto wuxuu ku leeyahay waxa iiga farxad badan inaan hebel banaanka aan kula soo sheekaysto shaah banaanka aan ka soo cabo maxay ahayd banaankaas aan ku soo sameeyo miyaysan ahayn zawjadu tii lagu dagaayay qurratu ayn miyaysan ahayn qulubtu tay ku degaysa miyaysan ahayn indhuhu mudda ay ku doogseen miyaysan ahayn shahwada ku gubaysa midad ku dajinaysa oo ku helaysa miyaysan ahayn ya waa sax ya ilaahay haydan xiftiyo kalaamka ilaahay ayaa daawo ah hooya waxay ku leedahay ninkayga maba arki karo eray hadduu dhaho aniga dhanba si xumaan baan u qaadan madaxaada saa ii gudoomaya ya eray hadduu ninkaygu ii dhahay ku leedahay madaxaada hal mar jag laysiinayaa tiiba maba hiba maxaa kalifay dadkii ilaahay oo isku fiiriya bal su'aashan isweydiye maxaa kalifay dadkii ilaahay farxadda oo iskugu tala galay inay iyaga isku caroodaan oo iyagii murug ay iska qaadaan oo isku nasan waayaan oo farxad dareemi waayaan maxaa sababay in qofkan gurigiisii banaanka uu soo shaqeeyay uu soo daalay xisaab uu soo dajiyay dukaamo ka soo shaqeeyay maanta dhan orday dhididkii ayaa korkiisa ku qalalay isaga dhan ba dhigdhigaya gurigiisa intuu yimaado oo dharka iska bedelo oo qubaysto oo macuustiisa xidho oo iscarfiyo oo xaajadiisa garabka qabsado oo macaan ay dhaho oo uu ku nasto ku dego oo la qoslo oo shaaha laga kabado marba mid la siiyo ya maxaa hor taagan bal isweydii maxaa hor taagan inuu qofka gurigiisa intuu yimaado intuu maqanyana uu dhaho macaan wallahi intaan kaa maqanaya ayaan waxaan dareemayaa xiriiri markuu gurigiisa intuu u soo socdana uu soo ruclaynayo irida markuu ka soo gal lahaa xaaskiisa uu siin lahaa ama cunugiisa uu qaadi lahaa bal ilaahay baan kugu dhaarshay waxa hor taagan ee mar allaale markuu arko oo xataa eray ay dhahdo eraygii uu u qaadanayo xumaan iyadana xumaan u qaadanayso maxaa sababay zawjada inuu ninkeedu markuu la hadlo ay saa u hiifto oo gebigeedaba saa u baabi'iso oo isaga dhanba ay muf kaga siiso erayo iyo hadallo aan fiicnayn maxaa sababaya waxaa sababaya waa la yaqaanaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka shaafiyo oo ha idinka qaado waa xasad noocu rabaa ka yimaado intaasi ayaa kuu daawo ah maalin walba waxaan kuu soo bandhigi doonaa aayado qur'aana isku daawe waxaan kuu soo bandhigi doonaa oo ku xigi doona daawooyin waxaan kaloo ugu bishaareynaya walaalahayga qaaliga ee anaad ku jeclahay aad iyo aad uga faa'iideysanayaa hooyooyinka ama dadkeeni customka ahaa ee al-shifa ka gatay daawooyinka inaan u samayn doono gruubkaasoo lagu talagalay dadka daawooyinka u socdaana inay qaataan talooyinka aan siin doono insha allahu tacaala khaasatan waxaan gruub khaasa iskale oo loo sameynayaa hooyooyinka daawooyinka dabeesha qaatay kuwii caafimaaday iyo kuwa weli wada iyo kuwa intay qaateen weli wax u dhiman yihiin waxaan ku siin doonaa talooyin waxaan siin doonaa daawooyin free ah insha allahu tacaala waxaan siin doonaa barnaamijyo ay mar walba ku farxad gelin doonaan mar walba ay ku farxi doonaan ilaahay idanka insha allahu tacaala qofka haddaba qaatay daawooyinka lambar ma soo qorin messengerka kusoo dirso insha allahu tacaala messengerka
kusoo dirso biidni illaahi tacaala. magacaygu waa hebel hebel ama waa heble hebla jooga dalkaas, lambarkaygu waa kaas, waxaan qaatay daawo fulaan, halay diiwaan geliyo gruubkana halaygu daro. ku bishaarayso haddaad gurigaaga ka murugto marka aad ka maqan tahay, marka aad gashana aadan seexanba, ku bishaarayso inaad ku farxi doonto biidni illaahi tacaala. jismigaaga ama jirkaaga xubin kamid a haddaad xanuun ka dareemayso, ku bishaarayso inaad caafimaadi doonto. aayaadka aan kuu tilmaamay xanuun walba oo jirkaaga ku jiro, kansar ha u weynaade, hargabnaha u yaraadee, muf bay ka dhigayaan. laakiin waa goorma? waa markaad qalbiga ka aaminsan tahay aayaadkan inay waxaan tirtirayaan, faatixo ay wax walba daawo ka tahay, cudur walba ay saarayso, cudur walbana ay qaadaysay, faatixa daawo kuu noqonaysaa. haddaad u tufato sixirka ku haya u tufo, kaasay daawo kaaga tahay. kansarka ku haya u tufo, daaway kaaga tahay. gaaska ku dhibaya, waxaan aaminsana, waxaan ogahay, xaqiiqda aan la yaabay waxay tahay, waaba waxaa ii yimi qof waalida, hooyo Soomaaliyeed, waxay ugu dhahday wax ma cuni karo, waxna ma liqi karo. maxaa? calooshan way dibirsan tahay, wax walba cunana halkaas ay soo istaagsan tahay. tahliil baa untu waxaan ku dhahay cab tahliishan, way dhibsanaysay. waxaan ku dhahay dhammee, way dhammaysay, way soo matagtay. waxaan ku dhahay maalin walba ii ima litr biyaa soo qaada, way soo qaadatay. after 3 days ma aaminsan tahay inay ugu dhahday wax walba oo aan dareemi jiray ilaahay waa iga qaada. cuntadii si fiican baan u qaadan, daawooyinkii aan isla qaado oo aan qaadan jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iga qaaday. yaa saa darteed ilaahay haydin barakeeyo oo haydin xiftiyo ee meeshiina hawshiina ka wada. hooyo ayaa maanta ii timi, waxay ugu dhahday bal fiiriyaa, gabadh aan dhalay ayaa waxaa loo qoray in la qalo. sanka waxaa kaga yaala muxuu ahaa, waxaa kaga yaala hilib. waxaan imaaday al-shifa, hooyaday baa timi, daawo yar baa loo qoray. daawadii markay dhammaysatay, dhakhtarkii aan u ballansanan maalintii in la qalo, daawadii ay dhammaystaan ay meesha tagtay. hadday tagtayba maba lahabo, bal u fiirsa, ilaahay baan kugu dhaarshay. hadday meeshii tagtayba, gabadhii markii la baadho waxaa la yidhi hilibkii kuma yaalle, maxaa la siiyey? waa dadaal. daawooyinkan wax kale laguma aqrin, kalaam ilaahay. hadda maxaan ka wataa? qof la yidhi hilib baa ku yaallay hal la qalo, buu kalaamka ilaahay daawo u noqday. qof la yidhi kansar baa kugu yaalla ee waxaad samaysaa kansarka naaska ha lagaa jaro, ayuu daawo u noqday. waxaan markhaati u ahay oo maalintii qabanolisu istaajinaya walaalkii la yidhi kansar baa lugta ka haya ha lagaa jaro Maraykan, oo intuu diiday quraan isa saaray, lugtii la fiiriyey, ninkiiba mase maba leh. waxaan oo aan arkay oo aan u soo joogay intaasoo ruux oo nin walba xanuun halisa lagu sheegay, oo la yidhi xanuunkaa halistaad qabtaa. qur-aanka ilaahay haddaynu ka dhigno kii waasha uun in la saaro, ilaahayna uu leeyahay wax walbuu daawo u yahay, goormuu kalaamka ilaahay daawo noqonayaa oo ina hanuuninayaa? qur-aanku waa hanuun, waa dembi dhaaf, waa naxariis, waa caafimaad, waa guul, waa farxad, waa wax walbo. meel walba loo qaado kalaamka ilaahay wuu noqonayaa. haddaad markaad xanuunsato aad ku soo koobto kaniina aan liqo, wax iimata dhakhtar kale aad oo weli cudur aad kasii qaadayso, halkana faatixa ay kuu taalo, daawooyinka adduunka yaalla oo dhan ay ka khayr badan tahay, kana caafimaad badan tahay, goormaad caafimaadaysaa? goormaad caafimaadaysaa? madaxa ku xanuunin, biyahaas cab, haddana tufo ku qubayso. madaxa ay xanuunin, biyaha madaxa ku dhaqo. madaxa ay xanuunin, madaxaaga saa u qabo, laba faranteed halkaas saa u saarto, faatixa ku akhri. waad qufacaysaa mar walba naqaska kugu dhegan, intaad halkaa madaxa saarto aayaad xasad ku akhri. halka laabto xawda mar walba ku soo dhacayso ku daloosha, aayadaha sixirka ku akhri. dhabarka mar walba aad ka taagnaan laadahay oo mar walba ka socon laadahay, gadaal intaad suulo soo ururiso aad ugu qabato aayadaha xasadka iyo isha iyo aayad kursi iyo faatixo iyo macaadateen ku akhri. meesha ilaahay kalaamkiisa kuu fududeeyo ku akhri. waxaa damaanadan kuu ballan qaadaya xanuun walboo dareemayso inaad ka nasanayso, kana caafimaadayso. gabdhaha khaasatan caadada ka sheeganayo ku dhibaatoonaya, waxaan ugu bashaareynaya 2 qodob. waxaana usoo bandhigi doona hameen dambe haddii Allah wadala uu idmo. sidatan haddii aad samayso waxaa hubaal ah oo aniga markhaati aan ka ahay inaad ku caafimaad doonto insha Allah tacaala. dadkii ku caafimaadana aad idiin soo gudbin doono. 2 qodob baad samayn doontaa markaad seexanayso, sii seexanaysid iyo markaad soo toosto. ha moogaan barnaamijkaasiina sheergare, sii gaarsii gabdho fara badan oo walaalaheena ku dhibaataysan. ilmaha suuxa insha Allah tacaala duruustooda iga filo.
يا هو يوين كلمة كسر دلمان دروستو إيجا فيلو أبياش جورجو ذو كدجلا دروستو ذا إيجا فيلو إن شاء الله تعالى هي داوين كودا دتكو جاز كدلو داوين كودا واسي dhiikarka sidoo kale sonkorta sidoo kale daawadiisu wataas wixii soo raaca oo kale waa idin soo gudbin doonaa laakiin sheer garee oo khayrkan su kaalmayno barnaamijyo tayo leh oo tayaysan oo wanaagsan oo aad ku faraxdaan iga filo oo iga bishaarayso insha Allah taala labada bishaaro aan idin wada kuwaas ay haayeen aad iyo aad u mahadsantihiin ilaahayna ha idin barakeeyo ha idin xiftiyo qof walba waxa aad ka sheeganayso iyo waxa aad ka tabanayso adiga ayaa garanaya maxay ahayd waxaan idin rajeynaya ilaahay idinka inaad caafimaad taamo qof walba uu dareemo insha Allah taala beeshka like saaro al-shifa one online subscribe saaro insha Allah taala youtube-ka waxa aad ka tabanaysan insha Allah taala noo soo dir hadii aan laga qaban telefoonada ama aan beeshka laga soo jawaabin ku bishaarayso waxa loo sameeyay shaqaale u khaas ah jawaabida dadka maaragtay customka inay u jawaabaan insha Allah taala gurigaaga adiga oo jooga qaada talada